انت كره هداد ديدان مدحوين علي جودلا وانا سيدي ليسان الا وا مدحوينه هندي علي جودلا ما نقان ابقال ما نقان وح ان نقانو الى برتمله او الهي جوغ يارين كفتنين والله بالله تالله ورا والله بالله تالله بداده لو شوبه والله ابقالو ورقدا سو دردريسين waxaan joojiya ilaahay diinteena kaftanay والله حواد لما بدقبا حابدا كاسي جيرا dhulkan dhan oo tirada badan uma jeedid miya حواد لبد wuxuu ku leeyahay 350 kilomitir oo xeebta حواد oo badda ku leeyahay ana iskool ku qaatay inta kalena wadi darsanayna wadi wasayna والله ابقالو هذا بيا شوريا نعلى بيدينا شاكا كان تاني مدالة على قول هبرتينا قول لابا هبرتينا مدالة وهذه وسينا والله صاحب هل كان يكوهاكو موقالكو هل كان يوكا باللابانا يا لكن انت عادن قدها اوقود بين اوي لافتي يا شيرتي سبسكريب اسكساريا فلو دي ما يلودي ها اسكسي سعوني اوكابي انتاس ومهمة قودي soo dhawaada maanta iyo ninkii la dhihi jiray Xuseen Soomaaliyeed oo isku bedelay Xuseen Xawaadle ayaan idin wadaa soo dhawaada marka wiil Xawaadle wallahi qul wallahi billah Xawaadle qul la ilaha illa Muhammad Rasulullah shibis gale wala ali qul laabi madaala ma la qaale inuu abgaal may laga laxdaan fiidada waxa la soo diray ayta warsaw ali qul laawe madaxweynihiinni maaha والله دولكيسو حريستوها بس ورك لا ما جرو علي جودلا ما لو حرينين ابقال لو حرينين وما ذكر لو حرينين dadkan kala shaqo isku milihine laakiin Hirshabelle ayaa loo xureynayaa Soomahan dhulka wax Hirshabelle liirana ma jiraan wallahi billahi taala habirtiina u sheegaysiin wax Hirshabelle liira ma jiraan ma naqaan Hirshabelle anaga wasl ogow Xuseen laakiin markasta Hirshabelle waa lama huraan والله بالله تالله هيرشبال دم انت سو شيكتين او الهي اوغ يahay والله بالله تالله ثم والله انا بشيغين ابقال الشباب عمل او بخنينا naga leexdaan ora shaqo isku milay ora abgaal ina diidaan maahan waayo dhulka iyo wax dheefka ayaa idinka dhaceeya sidaan ognahayna wiil iyo waalid ayaa tihiin abgaal dhulkiisa xareystaan tigniika waa haystaan kuma yaree tigniikada badbaado qaran ha ku xoreystaan هيرشبال la sameystaan shaqo isku milay waxaa isweydiina laakiin Xuseen oo adigu warqad infiitada maxaad ku diiday walaalo warqada tiriye wallahi billahi tallahi inayna xataa kalmad ay soo dhigi karin hiiraan cid shaqo kule male cidaan Xawaadleen shaqo kuma malabo Soomaaliya oo dhan shaqo kuma male qofkii hiiraan wallahi billahi tallahi kalmad ka sheegto oo wasayna anaga aabihin wasay inta kale hadaad diidaan madaxweyne Cali Guudla wana sidee yeelaysan ilaa waa madaxweynihi Hindiya Cali Guudla ma naqaan abgaal ma naqaan وح أنا قانو إلى برتمله أو إلهي جوجي يعني كفتنين والله بالله تالله ورا والله بالله تالله بداده لو شوبه والله ابقالو ورقدا سو دردريسين waxaan joojiya ilaahay diinteena kaftanay والله حواد لما بدقبا حابدا كاسي جيرا dhulkan dhan oo tirada badan uma jeedid miya حواد labada wuxuu ku leeyahay 350 kilomitir oo xeebta حواد oo badda ku leeyahay ana iskool ku qaatay inta kalena wadi darsanayna wadi wasayna والله ابقالو هذا بيا شوريا نعلى بيدينا شاكا كان تاني مدالة على قول هبرتينا قول لابا هبرتينا مدالة وهذه وسينا والله أبقال سو إيا قرابة متهيدين وكسي درانه سو أبتيالكين ماها ودارا مدلود إذن ما دالين حاجة كلا تليسان أنا قد إهلا نهاي دارا مدلود شيء والدا لوتين نقار قويا ورقديه هنا مرهبنو مداليه هنا مرهبنو على قول لابين مرهبنو هيرشبيلين مرهبنو نقار قويا حدان إذن دافوين أنا كورن وانا قار قوي يسلموه مقع عليه سيدي شباب هذي بربرينينا او لهي قوغانا بيكون شيء بقول لما ابقى لي هل ما حوال الله اسكن لكم وقتين ابي ورنو اظن نفي عنه او حسين الصوماليين لو يراهدو ايغو كا دمبيسين لكن حتى سان u jeedo حسين حوال الله بنقطي نبض الله ku yeelo حسين الصومالي waa laga baxay waa حسين حوادle afhayeenka macawiisleyda hiiraan la beydida أبقالو سو دوادا ولبا أبقال ما وضعها وأبقالك مقالة مقدسو إلا إيا قرق فاحد و 10 كيلو متر
magaalada Hobyo u jirta intaas intii ka dhaxaysa abgaalka ku nool ayaan la sii hadlayaa maantay horena waan ula hadlay cadowga aad arkaysaan ee xawaad la soo eriyayo ee dudub la soo eriyayo ee habargidir soo eriyayso ee meel kasta laga soo raacayo murusada soo raacayo meesha oo ku didi rabo ee oo u socdo oo xarun ka dhiga rabo ee adinka idinku dili rabo ee ummadda ku dili rabo oo ay xarumahooda ka dhiga rabaan waa dhulkiinna ilaa inaad wax xuraysataan ma rabtaan inaad dagaalantaan ma rabtaan inaad dadkiinna cadaawaha ka dulqaadaan ma rabtaan waxaan idin leeyahay nabad allah idin yeelo haddaadan wax iska dhici karinaha ummadda iska tuuga oo walaalihiin meelaha jooga oo walaalihiin deegaanada idinku xeeran degan intaad iska tuugtaan warkaalaya dadka iyo dalka noo xureeya dhaha oo xoog maal maskax muruq weydiista xooggiinna maalkiinna muruqiinnu waxba ma galo gabar alalaasta idin dhaantee nabad allah idin yeelo intaad saatan tihiin waa idin salaamaa daawade adigana haddaad halkaan ila soo gaartay muuqaalka iga sheergaray leegsaar muuqaalkay socodsiisaahe janalkayga Hanmaal Meediyana sabskareebta ku qabo gambaleelkana furasaad u noqoto daawadaha ugu horeeya beejkana falowdu waa ii muhiim ah iga soo hilmaamin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubno sarsare oo ka tirsanaan jiray dagaalyahanada ururka al-shabaab oo qaarkood dil toogasho ah ku xukunaayeen halka kuwa kalena aysan ka tanaasulin fikirkoodii oo uu ku saxiixan yahay magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la shaaciyay isbuucan la toogan doono soo gada qarxas la isku xirxiray kii bixiye dambiile ma aha waayo qofka loo sheegayo oo aqligiisa oo aqbali karo dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaad dhiibay ninka qarx isku xiray ma heli lahayn adiga waa mid ka weyn kan xasan daahir aweys ayaa ka mid ah magacyada loo gudbiyay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana siyaasiyiin ka soo jeeda beesha habargidir cayr ay isku dayaan in suurtaag ay ku sameeyaan haddaba barnaamijkana ayaan ku dul istaagi doonaa toogashada loo diyaarinayay in la toogto xasan daahir aweys iyo xasan sheekh maxamuud oo si daacada seefta galka ugala baxay qorsheynayana inuu dhammaan khaarijiyo dadka ku eedeysan kiisaska al-shabaabnimo madaxdii al-shabaabka ee dowladda isku soo dhiibay kuwaas aan wali fikirkooda ka tanaasulin oo uu ka mid yahay xasan daahir aweys barnaamijkeena ayaan ku lafaguri doonaa siyaasiyiin ay isku beel yihiin xasan daahir aweys oo xilligan qorsheynaya in laga tirtiro magaciisa iyagoo surtaa ku sameyn raba kiiska haddaba intaan u gudbin xogtan oo dhammaystiran dhammaantiin muuqaalkan la gareeya like-tu waa inoo muhiim youtube-keenana subscribe saarta gambaleelkana furta ku mahadsanideen isku soo laabasho wacan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo seefta galka kala baxay maalmahan ayaa waxa uu bilaabay qorshe lagu khaarijinayo dhammaan dagaalyahanada al-shabaab xubnihii ka tirsanaa ee ku sugnaa ama ku jiray xabsiyada dhexe ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya muddo isbuuca gudahood waxaa la toogtay 5 xubnood oo 4 ay al-shabaab yihiin halka ninka kalena lagu magacaabo Dable Caydiid oo hore u dilay wasiir Cabbaas Cabdullaahi Siraaji sanadkii 2017 waxaana madaxdii hore ee dalka ay ku dhiiran waayeen la khaarijiyay dhammaan xubnahaasi balse xasan sheekh maxamuud oo la soo baxay awood dheeri ah ayaa xilligan waxa uu wacad ku maray inuusan ka hari doonin dhammaan xubnaha ka tirsan al-shabaab isagoo kitaab jaamaca ku maray in al-shabaab uu dalka uga sifayn doono 2 sanadood gudahood xasan sheekh maxamuud oo xilligan Soomaalidu ay ku bogaadinayaan go'aanada la yaab kale uu qaadanayo ayaa waxa uu xilligan qorsheynaya in la khaarijiyo xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay dowladda oo fikirkoodii aan ka tanaasulin dadkaas waxaa ka mid ah wadaadka mayalka adag ee loo yaqaan Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ahaan jiray hogaamiye hore ee Xisbul Islaam xasan daahir aweys weli ma cadda goob uga tanaasulay fikirka al-shabaabnimo isagoo marar badan baraha internetka ka difaacay kooxda al-shabaab gaar ahaan markii la dilay wiilkiisa oo si cad u yiri wiilkayga waa uu shahiiday sidoo kalena Allah ayuu iga shafiic qaadayaa waana ku faraxsanahay geeridiisa inuu ka tirsanaa al-shabaab waxa uuna markaasi u hanjabay madaxda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo sheegay isagoo maxbuus ah oo la dagaalami doono taasina waxay keentay in xasan daahir aweys gabi ahaanba laga mamnuuca baraha internetka iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu waraaq degdeg ah u diray oo uu sheegay inuu cadeeyay inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab inuu ka baxay balse xasan daahir aweys ayaa la sheegay inuu ku adkaystay go'aankiisa oo uu sheegay inuu ka tirsan yahay kooxdaasi
uusanna ka tanaasuli karin fikirkaasi. xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi waxa uu go'aansaday in lagu daro xubnaha la tooganaya isbuucan. taasina waxay cara ku keentay siyaasiyiin kasoo jeeda beesha habargidir oo sheegay inay macquul aysan ahayn in la toogtanin oday ah, iyaga oo markaasi sheegay in xubnihii ay ka wada tirsanaayeen kooxda ay xilligan jagooyin sarsare ka hayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. arrintaasi ayuu ka carooday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud, waxaana kiiska uu xasan daahir aweys uu marayaa hadalkii ugu xumayd, iyadoo isbuucan la filayo in maxkamadda la soo taago kadibna lagu fuliyo xukun dil toogasho ah. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qabay in haddii la toogto xasan daahir aweys ay waa cusub u baryi doono Soomaaliya xubnaha sarsare ee ka tirsan al-shabaab ee xilligan markaasi kooxdaasi ku jirana, xataa haddii ay soo dhiibaan la khaarijin doono oo ay adag tahay in kooxdaasi xubno iska soo dhiibaan. halka kuwa kalena ay qabaan in ay markaasi wax lagu farxa ay tahay in la toogto xubno sarsare oo ka tirsanaan jiray dagaalyahanada al-shabaab, waxaana kooxdan ay qabaan inayba khalad tahay in la toogto wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee la khalday intii la iska daya madaxda qaarkoodna jagooyin lagu abaalmariyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waxa uu muuqdaa inuu dagaal dhab ah la galiyo kooxda al-shabaab, waxaana 5 bilood oo xilligan jagada haya uu kooxda kala dagaalamaya goobo badan sida fikirka diiniga ee kooxdan markaasi ay adeegsato dhaqaalihii kooxda oo xanimay, iyadoo isbuucan la jiray dhaqaale gaarayay malaayiin dollar oo kooxdan ay ku lahaayeen bangiyo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale xasan sheekh maxamuud dowladdiisa ayaa taakulo militari iyo mid ciidanba u dirtay shacabka macawiisleyda, iyadoo cutubyada kala duwan ee ciidamada militariga Soomaaliya ay xilligan dagaalka si rasmi ah uga galayaan furimaha dagaalka. taasina waa mid ay ku bogaadiyeen shacabka Soomaaliyeed. xilligii madaxweyne Farmaajo ma jirin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in dagaal culus ay la gasho al-shabaab, waxaana la soo diiwaangelinayaa in dagaaladii ugu cuslaa ay kooxda la gashay tan iyo intii la aasaasay kooxdaasi, iyadoo dagaaladaasi ay ku nafwaayeen boqolaal ruux. xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waxa uu dejinayaa kaartadii uu ballan qaaday, taas oo ahayd in al-shabaab dalka looga xoreyn doono muddo 2 sano ah oo soo socota. xasan sheekh maxamuud ayaa dadka falanqeeya siyaasaddu waxa ay qabaan in haddii uu ku wado sidaasi uu isagu sii ahaan karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sanado badan, waa haddii uu muddo gudaheed kaga takhaluso kooxda al-shabaab oo 15 sano ee lasoo dhaafay xal loo waayay, iyagoo weeraro culus ka geystay guud ahaanba Soomaaliya. weeraradaas ay ku nafwaayeen boqolaal kun oo ruuxaana ka mid ahaa weerarkii qaraxii Soobe iska control, weerar ka dhacay Beledweyne, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Boosaaso iyo sidoo kale guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dagaalyahanada al-shabaab ayaa wajahaya culaysyo kala duwan, iyadoo kooxda laga weeraray ilaa iyo dhowr jiho, waxaana kooxdu isbuucan gudaheeda la sheegay inay qorsheynayso in guud ahaanba ay doonayaan inay isaga baxaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana cadaadiskii ugu badnayd saartay beesha Xawaadle.